أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka sheeko xiiso la gaar ah aynu ku eegi doono mid ka mid ah hablaha taariikhda Soomaalida aadka ugu xusan ama ku suntan waa Tumaam waa Araweelo. dunida in dumarku ay hogaamiyaan ma aha mid ku cusub, waxaan soo aragnay taariikhda hore iyo tan casrigaaba inay dumarku wax soo hogaamiyeen. aynu soo eegna taariikhdii hore haddii aynu dib u fiirino waxaa la inooga warramay Balqiis oo xukumi jirtay boqortooyadii reer Saba, hogaaminta iyo habka dawladnimadana tusaale looga soo qaato. balse dunidan casriga aynu maanta joogno waxaa la arkay inay hogaamiyeyso dumarku dhinacyo kala duwan. waxaana ka mid ah hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel, sidoo kale waxaa ka mid ah Sheekh Xasiina oo hogaamisa dalka Bangladesh, iyo waliba Xaliima Yacquub oo hogaamisa Singapore. marka laga yimaado dooda taagan ee ah in dumarku ay hogaamiyaan, taariikhda Soomaalida waxaa si weyn ugu xusan gabadh loo yaqaano Araweelo. marun baa mise waa been, inagu maaha mid aynu xaqiijin karino, laakiin Araweelo waxaa la sheegay inay ahayd boqorad xukumi jirtay qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida. waxay ku suntanayd xukun adag iyo waliba waxa u dheeraa inay ahayd inay ragga ka saari jirtay ama siibi jirtay xiniyaha. waxaa la tilmaamaa oo la wariyaa raggu markii ay qabrigeeda ama xabaasheeda ay dul marayaan waa Araweelo in ay dhagxan ku tuuraan, taasoo macnaheedu yahay karaahiyo iyo nacayb ay u qabaan iyo waliba bahdilkii ay waqtigeeda geysatay. sidoo kalena dumarku waxa ay geeyaan caleemo qoyan iyo wax, taasoo ka dhigan in ay tahay jacayl iyo farxad ay u qabeen iyo waliba doorkii wacnaha ay ka qaadatay xilligii ay noolayd. Araweelo waxaa la tilmaamaa in ay ahayd qof dumar ah oo aad iyo aad u xukun adag, isla markaana ku guuleysatay inay xal u hesho colaadihii iyo dagaaladii qabaa'ilka ka dhexdhexi jiray. Araweelo intaas ayaynu ku gudbi doonaa. waxaynu soo qaadan doonaa barnaamijka iyo sheekooyinka xiisaha leh ku saabsan Araweelo. waxay ku dhex maqli doontaa inta aynu ku guda jirno barnaamijkan oday lagu magacaabo Oday Biiqay. balse ku xidhnow channelkeena, subscribe saar, waad mahadsantahay.